السلام عليكم داودياشينا qiimaha badan bishii January sanadan 2020 waxaan dhihi karnaa waxay bilow u ahayd sanad aad iyo aad u cajiib badan taasoo isku soo beegtay dhacdooyin la yaab leh isdaba joog ah way ka mid yihiin fayraska corona oo ka faafay wadanka China dabab la xakamay waayay bariga oo ka dhacay Australia duufaano dabaylo xoog leh wata geerida ciyaaryahanno caan ah oo ka mid yihiin Kobe Bryant iyo suldaankii Oman قابوس oo 50 sano wadanka xukumayay xulguftii Iran iyo Mareykanka oo isku goodiyeen dagaal laga cabso inuu dhalo dagaalkii saddexaad ee adduunka kulligood dhacdooyinkaasi waxay dhaceen bishii January ee sanadii 2020 waxa uu ahaa bil watay calaamadihiisa cajiibka ah iyo dhacdooyin baqdin geliyay dad badan oo u maleeyay in adduunkuba gabagaba yahay waxa uu ku bilowday cabsi laga qabo in dagaalka saddexaad ee adduunku dhaco iyadoo Mareykanku gantaal ku dilay mid ka mid ah generaaladii wadanka Iran xilliga ay ku sugnaa Iraq dhexdeeda waxayna Iran ku goodisay inay tilaabo degdeg ah qaadi doonto cabsi ayaa soo hoosaaday dunida iyo su'aal ah bariga dhexe waxa uu noqon doonaa goob ay ku legdamaan quwadaha caalamka Iran waxay ku jawaabtay Shanbari ka bacdi duqeymo ay u geysatay xarun military oo Mareykanku ku lahaa wadanka Iraq inkastoo la yiri wax saameyn ah oo yeelan duqeyntaasu laakiin se gadaal ayaa waxa ka cadaatay in khasaare soo gaaray Mareykanka mid nafeed iyo mid baaba isla maalintaas waxa soo dhacday diyaarad Ukraine laga leeyahay oo geeriyoodeen cidii saarnayd diyaaradaas dhammaanteed oo ahayd 176 qof waxaana qirtay falkaas dowladda Iran muddo ka bacdi oo ku andacoday inaysan ula ka u fidin gantaaladaas haddaba dhacdooyinkaas isku xiga ayaa maanka dadweynaha caalamka soo jeediyay talo ma dhici doonaa dagaalkii saddexaad ee adduunka iyadoo dhacdooyinkaasi daba joog ah dhaceen ayaa waxaa la soo sheegay xaaladii ugu horeysay ee gelida fayraska corona 9kii bishii January magaalada Wuhan ee bartamaha China inkastoo ay dowladda China dhexeen xaaladan anaga ayaa kontrolayna oo shacabku way wadan karaan dabaaldegyadooda bishaas oo ahayd bishii Christmaska lagu jiray oo dad badan ka imaanayeen daafaha dunida iyo China si ay ugu yimaadaan qoysaskooda hase ahaatee arrintu dib ayay ku xumaatay oo Wuhan gudaheeda ayaa fayrasku aad ugu fiday waxa uu geystay kiisas aad u badan heer la gaaray in Wuhan laga xiro adduunka ilaa hadda waxa uu fayraskaas u geystay dhibaatooyin dhan kumanaan dhimasho ah iyo kumanaan kun oo kiis waxa isla bisha January dhacay dab siyaado ah oo gubay qiimo far badan wadanka Australia laayayna nus milyan xayawaanad ugu qiyaaso waxaana xigtay duufaano ka dhacay isla wadankaas dhexdiisa waxaa sidoo kale qarxay volcano qarxay wadanka Philippines kaasoo geystay dhimasho burbur guryeed iyo xataa in xayawaano far badan u waayeen naftooda 8 qof ayaa ku nafwaayay isla bisha January wadanka Suwan baraf iyo roobab siyaada ah oo saameeyay gudaha xeebaha waxaa dadka biyuhu saameeyeen in ka badan 55 qof oo ku nafwaayay 13 kun oo qofna waa ay ku hanti iyo hawl beeleen dunida ciyaaraha waxaa sidoo kale ka geeriyooday ciyaaryahanka caanka ah ee Kobe Bryant waa bishii January isla bishii January soo ku geeriyooday shil diyaaradeed waxaa sidoo kale bishii January geeriyooday suldaankii caanka ahaa Suldaan Qaboos oo ahaa suldaankii wadanka Oman muddo 50 sano ah waxa uu noqday hogaamiyihii kaliya ee Carbeed ee wadankaas 50 sano xukuma sidoo kalena muddada intaas leeg barwaaqo iyo bashbash ku horsada dhacdooyinkan oo dhan waxaan ku baranaynaa inay noloshu yar tahay ilaahay ha noo naxariistee fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kalena la wadaagto asxaabtaada mahadsan